شل الصبح ومر دربا وخميس أهيت أفر ساعة يبر ميراس مركي أهيت همين هرانين لا سوهان وأنين أضيئة طولو تشوغا وحبها هي كليئة مسقوشي بوحو كفر يسوي وحانا هين كرسي مسقول عمل بس وبان قيمه سدويه ربعنا اي marka la isku daro $150 buu baahan waa nin ahlu quraan markuu ii sheegay baa nin aan garanayo wanaagsan oo sadaqada iska jeclaa baan wacay waxaan ku yiri ka faa'iideyso kursigaas gado markasta uu musqusha ku galo markasta uu meel la aado ajir ba kaaga soconaa cidaartuna u niyeysa hadaa naftaada u niyeysatay dawaalka u niyeysatay ninkii lacagtii markuu baxshay buu igu soo celiyay wixii waxaan la yaabay ilaa saakay telefoonku waa ii shaqayn waay qof ii soo wacana waan waay anuguna cid waan wici waay sadaqadaas markaa ii soo wacday baa telefoonku shaqeeyay markaan la baxayna dad baa ii soo wacahay waa ii furma telefoonka sadaqada marka ajaa'ibteeda waxa kamid ah irda ka xirmay beelahay kugu fura bishaarada saddexaadi waxa weeyaan waxay sabab u tahay salaadan oo aad ilaalisaa inay sabab kuugu noqoto jannada ilaahay inaad gashid wuxuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam man salla albardayn dakhala aljanna bukhari muslim baa soo saaray labadaas qofkii tukada bardaynka ah jannadu galaya waa subxiga iyo casr bishaarada labaad ee nabigu u sheegay sallallahu alayhi wa sallam waxa weeyaan waxay sabab u tahay salaadan subxiga oo la ilaaliyo in qofku ilaahay cadaabkiisa uu ka badbaado oo naarta galin wuxuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam lan yalija an-nar ahadun salla qabla tuluu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha naarta ma galahayo qof tukaday qoraxdu intaynan soo bixin waa salaada subxiga iyo inta aynan dhicin waa salaada casirka qofkaasi naar gali maayo bishaarada afraad ee nabigu sheegay waxa weeyaan sallallahu alayhi wa sallam in malaa'iktu ay soo xaadirto wuxuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam yatacaaqabuna fiikum malaa'ikatun bil-layli wa malaa'ikatun bin-nahaar waxa islakiin cirbinayo isbabadalahaya dhexdiina malaa'ikta habeenkii ku qoran iyo kuwa maalintii wayajtamicuuna fi salaati al-fajr wa salaati al-'asr waxayna kulmaan oo isdhafan dhaafaan salaada subxiga iyo salaada casrka thumma ya'ruju alladhina batu fiikum kuwii xalay dhexdiina ku hoyday oo ku bariyay baa kor u noqonaya oo xagga ilaahay u laabanaya fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim ilaahay waa su'aalaya asagoo ka ogaal badan wuxuu kaga ogaal badan yahay ba ilaahay su'aalaya kayfa taraktum ibadi adoomadaydi se oga soo tagteen bal al-bisharatu al-ula waxa weeyaan nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam man salla subha fahuwa fi dhimmati allah salaadan subxiga qofkii tukada oo ilaaliya qofkaasi wuxuu ku sugan yahay ilaahay xifdigiisa iyo damaankiisa iyo ilaalintiisa ayuu haystaa waa qof soo qaatay saakay amaan xagga ilaahay ka soo qaatay al-imam muslim ayaa xadiidka soo saaray